بسم الله marka hore waxaan salaamayaa dhammaan akhyaarta sharafta leh ee isugu timid shirkan jaraa'id ama sharaftan marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa akhyaartii iyo walaalihii soo qaban qaabiyay sidoo kale waxa mahad oo dhan iska leh rabbigiina uumay isuguna keenay halkan doona suurta galiyay inaan maanta danaha ummadda Soomaaliyeed halkan kaga hadalno gaar ahaan Jubbaland waxaan rabaa maanta waxaan isugu nimid halkan inaan ka hadalno dhowr qodob oo ugu horeyso waqti kororsiga iyo isbedelka lagu sameeyay qodobada dastuurka Jubbaland qodobka 28aad iyo qodobka 7aad intaanan gudagelin arrinka waxaan rabaa horta marka hore inaan dhowr arrimood hoosta ka xariiqo kow horta Jubbaland maxaa loo sameeyay sideedaba Jubbaland waa qodob dastuuri ah waa xubin ka mid ah dawladda federaalka ujeedada loo aasaasayna waa ujeedooyinka loo aasaaso dawladaha ama maamulada oo ah in dad isku meel degan isku deegaan ah isku dan ah loogu adeego lagu ilaaliyo xuquuqdooda looga shaqeeyo danahooda looga shaqeeyo horumarkooda dhowr iyo 10 sano ka hor markii la aasaasay ummadda Soomaaliyeed inteeda badan ama deegaanka intiisa badan wuu taageersanaa wuuna isku raacsanaa inkastoo khilaafaad badan ay jireen haddana dad badan way u garaaween waxaana loogu garaabay waxay ahayd in maamul loo baahan yahay in dadka in la isu keeno loo baahan yahay inaan taa laga maarmeynin awgeed ya dad badan oo xataa diidanaya candhuuftooda u laqeen waxa isweydiin la maxaa Axmed Maxamed Islaam loogu dhiibay bariga haddii aan dib ugu noqdo xaaladihii lagu jiray ee amni xumada ahayd ee ma aragtay is-aaminaad la'aanta ahayd ee ahayd kala qoqobnaanta bulshada dagacolaadadii meesha ka jiray bal maadaama nin wadaada uu ahaa xarakooyinkan islaamkana uu ka mid ahaa in aan isniri waxa laga yaabaa inuu asaga ugu dhow yahay guusha inuu dadkan isu keeno inuu diinta islaamka ku walaaleeyo inuu Soomaalinimadii soo celiyo inta waxa si dheerayd dagaalka shabaabka uu yaqaanay oo marka uu la soo galay nimanka iyadana inuu wax ka qaban doono 12 sano kadib maxaa dhacay waxaan dhihi karnaa arrimihii loo aasaasay dhammaan xabad ka suurta gasho mala amni ma jiro horumar ma jiro midnimo ma jirto dastuur iyo sharci shaqaynayo ma jiro qori isu dhiib ma noqon wixii la raadinay lama gaarin sababta maxay tahay marka sababta haddii aan aniga carabka ku dhufto danaha dawladnimada loo aasaasay ama maamulka loo sameeyay iyo danaha shakhsiga Axmed Maxamed Islaam uu leeyahay yaa tartan ka dhaxeeya oo isdiidan Axmed Maxamed Islaam wuxuu u baahan yahay kaliya shaabada iyo saldhiga meel uu salka dhigto dawladda magaalada Kismaayo ah iyo mandate-kii maamul goboleedka inuu gacanta ku haysto dadkana waxay u baahan yihiin amni walaalnimo midnimo dib u heshiisiin horumar iyo wax alla wixii looga baahnaa ma aragtay dawladnimada u baahan yihiin marka isdiidan yihiin labada arrin yaa waxay keenaysaa in TC maadaama isaga uu hogaamiye yahay TC inuu ka shaqeeyo markaan u soo laabto xaaladda hadda lagu jiro magaalada Kismaayo sidaan ognahay waa xabsi kor ka furan magaalooyinka kale ee Jubbaland qaarna shabaab gacanta ku haya qaarna khilaafay ku maqan yihiin hawlahaas oo dhan waxay hawlihii isaga loo igmaday oo aan kaga fadhinay 12 sano kadib at least inaan helno gaariga Kismaayo ka soo baxo inuu toos ilaa doolo socon karo islaanta afmadow degan ee biyo la'aanta ah in biyo loo dhaamiyo islaanta khayrkeeda iyadana sidoo kale biyo la'aanta ah ee Garbaharey degan in iyadana adeegaas oo kale ay hesho wiilasha shaqo la'aanta ah caruurta caafimaadka u baahan umulooyinka wadooyinka ku umulbaxayo isbitaal la'aanta ah waxaas oo dhan waxay wixii aan u aasaasnay inaan kaga maaranno dawladnimada inaan yaani aan u dhisanay dawladnimada haddii aan marka aan 12 sano kadib aan taaganahay in Axmed Maxamed Islaam uu ku fikirayo
7 sano kale inuu meesha sii joogo isagoo 12 sano sheeganay inuu gabadha Jamaame degan uu u yahay madaxweyne asagoo waligii arkay gabadha jilib degan iyo wiilka yar jilib degan madaxweynihiisa uu sheeganayo una socon horena u tagin gobolka Gado waligiis uusan tagin lana heshiinin degmada ugu dhow ee la dhihi karo ama xigtay u tahay ama distance ahaan way ugu dhowdahay waa Afmadow waa 4 koona laga fadhiyaa caanahay ku ahayd iyo xoolihii ay ku ahayd ma taqaanaa caanka ku ahayd malaha magaalada Kismaayo sidoo kale qudaartii iyo hilibkii iyo caanihii lagu yaqaan male waa meel ma taqaanaa al-shabaab isku warka hayaan oo ay dadku sida u silcsan yihiin marka waxa ayaan daraa 12 sano kadib inuu qodobadii dastuurkii isaga gacantiisa uu ku qortay 2012kii ilaa iyo 2015kii la soo gabagabeeyay ee uu ku qoray isagoo markaa isla 2 sano ku meel gaara iyo 2 goor oo min 4 sano ah way ka badan tahay 10 sano xisaabsaday ayaa wuxuu ku qoray qodobka 7aad in 2 goor ka badan uusan madaxweynaha soo sharaxi karin mudaxileedkan uu yahay 4 sano isaga ka shaqeeyay laakiin marka ayada waa fahmi karnaayo 2 sano ku meel gaar iyo 8 sano la isku daro 10 sano maanta wuxuu arkay inuu dhex taagan yahay wixii oo dhamaaday 10 sano dhamaatay wax kale loo baahan yahay dastuurka marka la furay muxuu yahay dastuurka la furay waxa waaye qodobada la furay waxa weeye ama la bedelay aan dhahe waa qodobka 28aad oo mudaxileedka ka hadlayo 4 sano meeshu 5 sano ka dhigay qodobka 7aad asna mudaxileedka iyo inta goor ee madaxweynaha uu soo noqon karo ama dib loo dooran karo ay ku cadeed wuxuu ka dhigay intuu doono mar walba oo doorasho la doorto inuu imaan karo qodobka haddaan isweydiino hadda ujeedada loo furay gabigaba dastuurka loogu noqday waa in 5 sano dambe la xalaaleeyo haddaysan taa ahayn qodobka ayaa loo furay maana la ii furay ma musharaxiin kale loo furay oo aan weligood madaxweyne noqon ninka ay ka dhamaatay waqtigii mandate-kii 2 goor waa isaga wuxuuna qoray in intuu doono uu soo noqon karo taa micnaheedu waxa weeye marka ujeedada waxa weeye 5 sano dambe ma aha tan hadda halka sano xataa way ka weyn tahay waxa ay daraa mucaarad badan oo arrinka ka hadlay inay dadka u iftiimin waxa la bedelay inuu sanadka kaliya ahayn waxa la bedelay uu yahay inuu madaxweyne Axmed Maxamed Islaam sidii boqortooyo uu waliga u joogi doono sidaan uu ka shaqeynayo daadisna waana sababta ma aragtay uu dastuurka dib ugu noqday maxaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay siyaasiyiinta deegaanka mucaaradka bulshada nin iyo qabrigii la kala ma qariyo dadkan inay isla noolaadaan oo ay wax wada dhistaan oo ay ma taqaanaa dawladnimadooda iyo midnimadooda ka shaqeeyaan waa laga maarmaan gada iyo jubbada hoose iyo jubbada dhexe inay isu yimaadaan wax wada dhistaan waa qasab in marka runta la abaaro oo laga shaqeeyo sidii dadkan loo midayn lahaa sidii ma taqaanaa caqabadaha na hortaagan iyo ninkan dantiisa ay noqotay in ma aragtay uu ka shaqeeyo sidii uu dib ugu soo laaban lahaa oo maalinba maalinka ka dambeeyo waxa uu ka fikirayo ay noqoto sanadada dambe uu joogi doono hadduu Ilaahay cimri siiyo waxa inta aan ka baxno in kacdoon midaysan laga bilaabo deegaanka mucaaradka dadka lugooynayo 2019kii lugooyay ee hore dhowr goor u lugooyay ee mansabka raadinayo ma taqaana shaqadoodu ay tahay in ama wasiirnimo ama xoolo shilmaada ay ku helaan in iyagana ma aragtay la iska leexiyo oo dadku aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta iyo dadka shacabka deegaanka degan in islaamaha biyo la'aanta 12 sano ah ee oonka u dhintay iyo caruurta diyaaradaha iyo ma taqaana dronisyada iyo al-shabaab iyo caqabadaha faraha badan ku jiro ee meedadkooda isdul saaran yihiin masaakiinta sidii aan ugu gurman lahayn waa in laga fikiro waxayna u baahan tahay Jubbaland waxbaa noo bilaaban aasaas fiican ay leedahay in ma aragtay dib aan isugu noqono in aan ninkan iska horleexino waxaana loo baahan si midaysan arrinka in looga shaqeeyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka Jubbaland wiilasha dhalinyarada ah 12 sano lagu lugooynayay shabaab iyo deegaamaha la xoreyn doona ilaa Bu'aala la tagi doona ila leeyahay dadka danta deegaanka ka shaqeynaysaan iyagana sida daacadnimada habeen iyo maalin dhaawac iyo dhimasho iyo rafaad ugu jiro iyagoo aan mishaar la siinin sidaan hore u sheegnana 4 biloodba $100 la siiyo taasoo micnaheeda ah
bishii inay qaataan $25 ciddaad doontaan aad weydiin kartaan iyagana markhaati bay ka yihiin waxaan uga mahadcelinayaa hal adeegooda waxaanan u sheegayaa inay wadaan hooshooda in ay cadowga dadka ka dhiciyaan inay u diyaar garoobaan dib u xoreyn in magdhowga iyo maaragtay qaaraanka iyo xuquuqda ka maqan ee 12 sano aysan helinna in la siin doono kolay noqoto shacabka inay canshuur inta isku qoraan iyaga ay siiyaan laakiin waxaan u sheegaynaa Axmed Maxamed Islaam inuu idinku danaysanayo in waxaan mataqaanaa dantiina iyo hooyooyinkiini iyo walaalihiin iyo xoolihiini iyo meelihii aad u dagaalamayseen ajandayaasha aad wadataan ajanda ka duwan u wata laakiin waxaan idinka codsanaynaa sidaa ay tahay inaad meeshiina joogtaan hooshiinana wadataan waxaan idin ballan qaadaynaa markay noqoto ilaahay uu na gaarsiiyo mar dhowna waan gaari doonaa inaan ma aragtay wax walba idinka maqan iyo abaalka aad ummadda ku leedihiin xuquuq gooni ah la idin qoro la idinkana abaalmariyo hadduu ilaahay yiraahdo Axmed waxaan leeyahay masaakiinta bu'aale ku nool ee aad leeyahay waan idin soo socdaa 12 sano waan idin xoreyn doonaa ee caawana aad hoteelada Dubai ka jiifto oo aad ka raaxaysanayso haddana aad dastuurkii sida harqaanka adiga waxaad lahayd ma aragtay aan ka maqalnay hebel harqaan buu tolanayaa ninka harqaan loo uba tagay adigu gurigu ku yaala oo maalinba waxa rabtaa tolataa marka waxaan leenahay dadka ha lugoynin ma aragtay masaakiinta ah ummadda ka hor leexo wixii aad qaban karto tabartaada waad qabatay sax iyo khaladba laakiin waxa la soo gaaray 12 sano kadib ma aragtay enough is enough ummadda ka hor leexan leenahay inta kadib waxaan ugu dambeys rabaa jaaliyadaha Jubbaland ee ma aragtay qurbaha ku nool dhamaantood in qoqobnaanta iyo qabyaaladda iyo qurunka inta ay ka baxaan ummadaha ay TV-yada ka daawadaan ayagoo afkooda daqsiga ku wareegayo sidii loogu adeegi lahaa inay bilaabaan marka Axmed Maxamed Islaam iyo dhammaan ummadda mataqaanaa meesha joogtaba waxaan leeyahay ma aragtay danta ummadda ha laga shaqeeyo adigana dadka ka hor leexo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh